kii dambe ka helay isagoo ku jira bartiisa Skype-ka cabaar ayaanu isxaal wareysanay markii dambe ayaan u sheegay waxa naga haysta wadaado caqabad ku ah mashruuca Page isma ibna dhibine waxa uu igu yiri kuwa laambadoodii way baqtiday ee ka baqan waxa uu yiri waxaan nahay qoom sahan dirta marka ay dan leeyihiin iyo markasta oo ay dal ku duulayaan waqtigii aanu qorshaysanay in aanu dumino khilaafada islaamka ayaanu sahan u dirnay nin oday ah oo caqli badan wuxuu safar ugu baxay caasimadda islaamka ee Constantinople intii uu magaalada gelin ayaa uu la kulmay carruur badan oo duleedka magaalada u joogta tartan mid ooyay ayuu ku yiri adeer maxaa kugu dhacay oo aad la ooyaysaa waxa uu ugu jawaabay toban leeb ayaan ganay oo mid halkii aan shiishayay odagii waxa uu ku yiri sagaal baad la heshay maxaa ka oohinaya wiilkii yaraa ee muslimka ah ayaa waxa uu ku yiri gamuunka tobnaadeen la waayay waxa ku badbaadaya cadowga islaamka taas baan la ilmeynayaa halkiibuu odagii sahanka ahaa ka soo noqday oo uu sheegay inaanay dhaweyn xilligii la qabsan lahaa khilaafada islaamka isla odaygaasi waqti dambe ayuu soo noqday sidiisa lamid ah ayuu arkay wiil yar oo ooyaya markuu weydiiyey waxa uu la ilmeynayay wiilkii waxa uu sheegay inuu waayay gabadh uu jeclaa markaas ayuu sahankii noo sheegay in la gaadhay waqtigii la dumin lahaa khilaafada islaamka sidii baana ku burburinay ilaa magaceedii cid soo qaada la waayay wuxuu iigu daray in waqti dhaweyd koox gaala ah ay ku sheegeen culimo islaam ah waxay soo mariyeen dhowr waddan oo islaam ah cid garatana way waayeen markaas ayaanu garanay inay baqtiday laambadii dunida islaamka u baxaysay hadda way lacag jecel yihiin oo wax badan oo saamayn ah ma lahan ayuu igu yiri ee ha u joojin waxaan weydiiyey bal inuu kuwii hore iga warramo Page waxa uu igu yiri waqtiga ayaa igu yaray nimankaas waa xoog aan ka nasan weynay waqti ayaanu doonay inaanu sixir ku soo aasno Masar diyaaradii sidii sixirka ayaa si lama filaan ah sinay waanu garan weynay waxa soo riday 30 sano kadib anagoo dhacdadaas baarayna ayaa magaalada Sharm el-Sheikh uu nin kuwa hore ka mid ah oo noogu sheegay inuu diyaaradda soo riday wadaad Soomaali ah oo dacadiisa kaga adkaaday sharkii aanu wadnay wuxuu Page sidoo kale ii xaqiijiyay in ururka dhexdiisa ay kor u kaceen awoodaha xubnaha xagjirka ah ee doonaya in aanu Soomaaliya la wareegno 2020ka waxa uu yiri ordigan ayaa 2011kii shimbir u noqday Soomaalida isagoo si fudud u kala daadiyay qorshihii degsanaa hadda se damca lagu doonayay in Soomaaliya dib loogu qabsado rag cadhaysan baa miiska soo saaray waxa ay doonayaan inay Soomaalidu soo celin kari weeyday amnigii oo ay hanan weeyday dawladnimadii sidaana lagu qanciyo ummadaha ilbaxa ah in Soomaalidu isku talin weeyday ay haboon tahayna in loo taliyo 60,000 oo askari oo UN-ta ah ayaa hawsha loo diyaarinaya marka loo baahdo in qorshaha la fuliyo waxa ka qayb qaadanaya Ingiriiska, Mareykanka iyo Faransiiska waa markii ugu horeysay ee ururka guul la taabto ka gaaray hawgaladii dhaqan ee aan gudaha ka fulinay madaxii ururka ayaa igu soo hambeliyay sida hawlkarnimada iyo nafuurida leh in u dhaqaajiyay hawlo 80 sano u taagnaa gacan gool ayaa sidoo kale ii fidiyay casuumaad mahadnaq iyo maamuusid isugu jirta oo la igu qaban qaabiyay jasiirad ku taal Caribbean-ka anoo farxad iyo qabiisiyaaday ayaan u soo dhoofay jasiiradii lagu casuumay Addis Ababa ayaan sii maray waxaan muddo saacad ah aan ku hakaday Dubai halkaas oo kulan kula qaatay ergey uu Page igu soo xidhay ergeygaas oo magaciisu ahaa Sir William Don ayaa isagu isugu kay sheegay inuu ka tirsan yahay oo madaxna u yahay waaxda dhaqanka misinta oo ah shirkad khubaro ah oo qaadata qandaraasada lagu dadgedinayo deegaanada laga helo saliidda qayrin oo ay ka mid tahay Sir William waxa uu sheegay inay heleen qandaraas dahabi ah oo la doonayo in laga fuliyo dhulka Soomaalida inta aan la gaarin xilliga la qoondeynay in la soo saaro shidaalka Soomaaliya ee 2024ka waxa uu sheegay in isaga iyo aniga ay namidayso mid ah laakiin inoogu kala suntan mabda iyo manfac waxa uu igu yiri adiga waxa ka shaqaysiinaya waa mabda aad aaminsan tahay oo aad la wadaagto walaalahaaga Dhaak Marow halka anagoo aan wadno damaca saliidda qayrin carrada Soomaalida waxa uu siiyay aqoonsigiisii waanu iga tagay isagoo ii sheegay in mashruuca qiimeynta wajigiisa hore uu bilaamayo sanad kadib waxaan sii watay safarkayga aan ku beegsanayay jasiiradda Barbados diyaaraddu waxay ka duulaysay joog sare hadba kursiga diyaaradda anoo iskala bixinaya ayaa gabadh qurxoon oo ku labisan dharka hablaha adeegtooyinka ah ayaa waxa ay igu tiri mudane u toosaado mahadsan hadiyad ayuu ka